gabadha kaliya ee Soomaali ah ee aan ogaaday inay ku jirto faylka Epstein file isla markaasna walaasheed oo yar oo ilaa 18 sano jirta ka iibsatay Jeffrey Epstein sida daraadeed waxaan muuqaalkan aynu ku fiirin doonaa gabadhaas uu qofkay tahay maxaa dhexmaray ayada iyo Jeffrey Epstein sidee walaasheed u iibsatay iyo xogo kale oo aan soo aruuriyay oo gabadha markaa la xiriira ayaynu muuqaalkan bal ku dul istaagi doonaa markii aad fiirsan meeshan laba file oo kala duwan ayaa ku jira labadan file kamida waa file ay labadan qof ay chat gareynayaan waa file ay laba qof markaasi ay chat gareynayaan waliba text message ay isku dirdirayaan hadii aynu furno filekan markii aad fiirsan waxaad arkaysaan laba qof ayaa wada hadlaya midkan koobaad waynu arki karnaa waa Saadiyo Ibrahim gabar la yiraahdo telefoonkeeda waa la qariyay qofka kale magaciisana waa la qariyay telefoonkiisana waa la qariyay markaysan qaybtaas marka waa qaybta kore taariikhda uu dhacayo chatting kaasna waynu ka arkaynaa meesha inay sanadii 2011 markaasi ay tahay laakiin qoraalka qaybta ugu horeysa markii aad akhriso ayaad waxaad ka fahmaysaa in qofka gabadhan Saadiyo la yiraahdo la chat gareynaya inuu yahay Jeffrey Epstein oo maxaynu ku garanaynaa wuxuu leeyahay email kan iigu soo dir sawirro ayuu leeyahay sawirradu hadii markaana saaxiibadeed iyo walaasheed iyo weeye marka email kan waa emailkiisi Jeffrey Epstein vacation ayaa la yiraahdaa marka halkaas waxaynu ka dareemeynaa hadii xataa la qariyay magaca iyo telefoonka conversationka gabadha cid la sameynaysa inaynu wali identify garan karno qofkaasi inuu yahay Jeffrey Epstein inta aan wada hadalka marka u galinin oo aan ku degdeginin bal hadana emailkii kale aan fiirino waxa macluumaad ku jira Jeffrey Epstein waa fan qofka kale uu yahay waa Saadiyo iyo Ibrahim waa laba magac markay israacaan gudaha Soomaalida very common ka ah 100,000 oo qof baa la heli karaya qurbaha joogta iyo dalkiiba email kala duwan oo Saadiyo Ibrahim la yiraahdo waa Saadiyade xagee joogtaa maxay tahay su'aalo badan baa ka imaanaya waana meesha ay ka imaanayso ina baartaana kala duwan aan sameeyo markii aan fiirino file-ka labaad file-kanu waa file marka labada qof ay isku darsadaan social media-da London-ka la yiraahdo waxa lagu soo dirayaa notification hadii hadda adiga aan ku soo follow gareeyo aan London-ka soo follow gareeyo oo aad aqbasho waxa la soo dirayaa Xuseen oo qofkii aad follow gareysay ama aad add friend tiri wuu ku aqbalay baa la soo leeyahay email baa la soo dirayaa marka fariintan waa fariin noocaas oo kala ah Jeffrey Epstein ayaa gabadhaas wuxuu ku darsaday London uu follow gareeyay ka bacdin waxa loo soo diray Jeffrey Epstein Saadiyo Ibrahim baa la leeyahay has been accepted your invitation baa la leeyahay way kugu soo darsatay laakiin qaybta dambe markii aad fiiriso ayaa waxa ku jira macluumaad very sensitive laakiin dabcan cidii sirdoonka ahayd ee damacday inay xogahan qaar badan oo kamid ah ay qaqariso aad bay u degdegeen meelo badan waxa arkaysaa hal file oo ay laba jeer soo print gareeyeen midna ay macluumaadkiisa qariyeen midna macluumaadkiisa u banaanka yaalo marka waxa saarnaa sirdoonka Mareykanka iyo dawladda Mareykanka culays xoog leh marka sirihii ay xataa islahaayeen qaar badan oo kamid ah qariye qaar badan ayaa hadda oo soo jabsaday laakiin qaybta marka aynu fiirino waxa arkaysaa gabadhan waxa ku qoran Saadiyo Ibrahim and Boste luqadda waa Faransiis weeye saxtwa miya arano laakiin kan waa import iyo export waa import at export waa Faransiis laakiin macnaheedu muxuu noqonayaa we can translate markaynu translate garayno waxaynu arkaynaa ama aynu fahmaynaa in macluumaad aad u tiro badan oo meeshan uu ku jiro sectorka ay ka shaqeysana uu yahay import iyo export magaceedana la yiraahdo Saadiyo Ibrahim isla markaasna ay ku nooshahay magaalada Paris ee dalka Faransiiska marka macluumaad dhameystiran halka ay ka shaqeyso waxa ay ka shaqeyso halka ay ku nooshahay iyo waliba shaqada ay ka shaqeyso departmentiga ay ka shaqeyso ayaynu helnaa inta hadii la helo marka qofka it's easy in qofka marka la investigate gareeyo ama la baaro xogihiisa public ah barihiisa bulshada dhaqdhaqaaqiisa wala heli karaa very simple hadii inta bas aynu koobiyeyno kadibna aynu ku paste gareeno search engine-nada kala duwan sida Bing sida Google iyo kuwa la midka macluumaad badan baa la helayaa tusaale ahaan oo kala dambe Google aan ku paste gareeyo waxa inoo soo baxayaba ciwaankii London-ka ahaa oo ay lahaydba ki Jeffrey Epstein uu ka follow gareey naftirkiisa baan soo helnaa marka sawirkeeda saaran macluumaadkii aynu raadinaynay oo Faransiiska ahaa
oo sheegay halka ay ka shaqeyso iyo sectorka ay ka shaqeyso iyo meesha ay degan tahay ayaynu soo aragnaa okay saacadiyana waan helnaa dib baan idin kala wadaagi doonaa sawiradeeda iyo muuqaaladeeda iyo information kale laakiin hadana dib baynu u laabanaynaa waxaan dib ugu laabanaynaa bal chattingkii maxay isku sheegeen saacadiyo iyo Jeffrey Epstein maxay ka wada hadlayeen waa maxay dealka iyo businesska ay ka sheekeysanayeen iyo waxa ay ka hadlayeen baynu fiirinaa